blue economy inta ugu badan waa badda waana inta ay bini'aadamka ka anfacsadaan ha ahaato xeebaha kalluumaysiga dalxiiska meelaha ay maraakiibta maraan sidoo kale badeecadaha adduunka 80% waxa ay maraan badda waxa ka mid ah badaha ay maraan midda Soomaaliya kalluumaysiga sanadkii waxa kalluumaysiga laga faa'iidaa 270 bilyan Soomaaliya waxa ay ka faa'iidaa 139 milyan sanadkii 1994 waxa Soomaaliya laga soo saaray 30,000 oo tan oo malay ah balse 2018 waxa la qiyaasay in wax soo saarka malayga ee Soomaaliya uu ahaa 100,000 oo tan dabayaaqadii bishii November sanadkii 2018 ayaa shirkii ugu horeeyay ee Blue Economy Conference lagu qabtay Nairobi waxaana qayb ka ahaa Canada iyo Japan ujeedkana ayaa ahaa si loo gaaro Agenda Sustainable Blue Economy 2030 waxaana looga hadlay ilaalinta iyo ka faa'iideysiga Blue Economy Soomaaliyana qayb ay ka ahayd sida ay sheegayaan guddiga dhaqaalaha ee qaramada midoobay u qaabilsan Afrika UNACA qaaradda Afrika waxay sanadkii Blue Economy-geeda laga heli karaa 1 trillion laakiin waxa ay lumisaa 42 bilyan oo ka mid ah maadaama si sharci darro ah loogu kalluumaysto xeebaheeda Soomaaliya waxa sanadkii si sharci darro ah Blue Economy-geeda looga faa'iidaa 300 milyan oo dollar oo ku dhow miisaaniyadda guud ee dalka haddaba sidee u kordhin karnaa ka faa'iideysiga kheyraadkeena loona yareyn karaa xatooyada shisheeyaha